That night, I signed up for BetterHelp. That night, I signed up for BetterHelp. That night, habeenka, I signed up waxaan ku soo biiray for BetterHelp. Halkan waxay ku jirtaa sign up ardayow ku soo biirid. Laakiin sign up micnaheedu waxa weeye in aad company ama se organization jiray aad noqoto maxay xubin cusub oo ka mid ah iyaga. Marka joiner ayaynu isticmaalaynaa uun. Sidoo kale waxaa isticmaalay ereygan website-ada inta badan. Website-ka markaad hore ugu jirto akoon ka lahayd wuxuu ku odhanayaa sign in oo ka wado akoonkaagii hore jiray gal. Haddii aad tahay shakhsi cusub oo kusoo biirayana ku odhanayaa sign up oo uu ka wado nagu soo biirayan hore kugu sheegay micnihiisu inuu yahay ereyga. Waayahay intaas waa keliyaata ereyga sign up micnihiisa. Marka gabadhu waxa ay tidhi habeenkaa waxaan ku soo biiray BetterHelp. BetterHelpna waa magaca kambaniga ay ku soo biirtay gabadhani. haddaan dib idiin xasuusiyo asxaabtii hore ugu xidhnayd youtube-kan caalami official waxaa jiray muuqaal aynu bilownay ka hor ilaa 2 bilood ka hor kaasi oo aynu ku soo qaadanay gabadh uu ku dhacay xanuunkan loo yaqaan depressionku taasi oo aaday meesha loo yaqaan terabiga ee lagu daweeyo xanuunada isku buuqa amase depressionka anxiety-ga iyo waxyaabaha la midka taas ayaynu muuqaalkeedii saddexaad halkan ku qaadan doonaa. haddii aad tahay qof ku cusub youtube-kan amase shakhsi hadda ku soo biiray waxaa laga yaabaa fahamku inuu kaa xumaado. si aanay taas u dhicin markaa soo daawo muuqaaladii hore ee aanu ka samaynay filimkan. waayahay aynu soo laabanno asxaabtii hore inoogu xidhnayd hadda mayla socotaan. asxaabtii hore ee youtube-ka hore ugu xidhnayd waxaan jecelahay inaad ila socotaan filimkan iyo qaybihiisii horena aad soo qaadateen. waayahan soo laabanno. I really loved the convenience of scheduling my own sessions. I really love run ahaantii waan jeclaa the convenience of scheduling qaabaynta amase maamulidda ku habboonayd my own sessions kulamadeyda aniga run ahaantii waan jeclaa. terabiga markay joogtay waxay la kulmaysay doctorka oo waxay la qaadanaysay maxay session amase kulan ay la yeelanaysay marka waxay ahaayeen kulamo convenience ah oo ku habboon waqtigoodii saxda ahaa. taas ay ka hadlaysaa gabadhu. I was really nervous at first. I was really nervous at first. markii koowaad run ahaantii waan khalkhalsanaa. ereyga nervous waa marka uu qofku maxay dareemaya cabsi amase naxnaxdin oo kale uu dareemayo. marka waxay tihi markii koowaad waan khalkhalsanaayo oo cabsoonayo oo kale waa markii koowaad ay la kulmaysay doctorka ay sheegaysaa. First, but I realized my therapist was there to help me. I realized my therapist was there to help me. but laakiin I realized waan garwaaqsaday amase waan xaqiiqsaday my therapist in doctorkaygu was there uu halkaa u joogay to help me inuu caawiyo. ereyga therapistna waa doctorka ku takhasusay xanuunada emotionally amase kuwa mentally kuwa xanuunada depressionka iyo stresska iyo xanuunada isku buuqa ah ee noocaasa ee qofka aan dhaawac maxay duleed soo gaadhin. doctorka xanuunada bartay waxaa la therapist. marka doctorkaas ay sheegaysaa hadda. Gina moved in with me. Gina moved in with me. Gina way ila nooleed ayay tidhi. ereyga move in with waan kuu soo qaaday ardayo kaasi oo phrasal verb ah micnihiisuna yahay to start living in the same place. inaad bilowdo inaad kula noolaato qof isku meel aad hal meel kuwada noolaataan. essentially waxa inoo sheegay asal ahaan ereygan wuxuu ahaa inviting someone inaad qof ku soo casuunto to become inuu noqdo roommates kula noqdo. roommatesku waa qofka qol wada seexanaysaan wada joogaysaan ku wada noolaanaysaan qofkaas waxaad oranaysaa qofkan roommate ayaanu wadanahay yacni waxaa laga wadaa room ayaanu wadaagnaa. marka taas ayaa laga wadaa.
iyaduna waxay tidhi Gina oo ah saaxiibadeedii ka caawisay inay hesho terabiga ayay sheegaysaa oo ay leedahay hee way ila noolayd aan sii socono markaa In with me to keep me company during this difficult time. to keep me company say igu heli yeesho during intii aan ku guda jiray this difficult time waqtigan adag I continued therapy I continue therapy waan sii waday daaweyntii and I realized it was the best choice to and I realized waanan garwaaqsaday amase waan xaqiiqsaday it was inay ahayd the best choice dookhii ugu fiicnaa mase ikhtiyaarkii ugu wanaagsanaa ee to Mike aan kaga dhigi karayay make in light of my mom's passing and my divorce. to Mike ayay noo marisay ardayow to Mike aan kaga dhigi karayay in light yacni aan ku iftiimin karayay oo ku hagaajin karayay maxay my mama's passing waxaynu ognahay qaybtii koowaad kusoo daawanay gabadhan inay hooyadeed geeriyootay sidoo kale uu odaygeediina u furay amase divorce ay uu ku dhacay amase furitaan ay gabadhan wajahday taas ayay sheegaysaa oo waxay tidhi terabigu waxaan xaqiiqsaday inuu ahaa ikhtiyaarkii ugu fiicnaa ee aan hee kaga dhigi kariyay noloshayda maxay mid iftiimaysa amase mid fiican kabacdi wixii depressionkii soo wajahay markii ay hooyadeed geeriyootay odaygeediina u furay Divorce. I couldn't have done any of this without Gina. waxay tidhi gabadhii I couldn't have done any of this without Gina ma aan samayn karin waxaan oo dhanba ma aan samayn karaynin Gina la'aanteed I couldn't have done ma aan samayn karaynin any of this waxaan shay ka midana ma aan samayn karaynin without Gina la'aanteed haddaanan Gina haysan lahayn Gina waa saaxiibadeed Thanks to therapy, I was able to start my healing journey. waxay gabadhii tidhi thanks to therapy au mahadsan yahay terabigii I was able waxaan awoodayay to start inaan bilaabo my healing journey safarkaygii bogsashada hore waxaynu kaga soo hadalnay muuqaaladii koowaad iyo kii labaad in gabadhan u depression ba'an uu soo wajahay markii hooyadeed ay geeriyootay odaygeediina uu furay muuqaalkii maanta halkaas ayuu ku eegyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aadayadii salaamaya asxaabta quruxda badan ee ku xiran youtube-kan caalami official waxaan intaa ku darayaa oo ay tahay inaad ogaatay qof kastoo youtube-kan ku xiran muuqaaladu way isku xiran yihiin haddii aad mid ka mida daawato waxaa laga yaabaa inaad fahmi weydo sheekadu meesha ku socoto fadlan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kuu baraarujinayaa amase ku xasuusinayaa inaad muuqaalada playlistiga ugu tagto iyagoo dhammaystiran asalaamu calaykum